السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا نورا جانال. waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo in channelkan waxyaabo badan haddii ay noqoto jirka, haddii ay noqoto timaha, waxyaabo badan oo cajaa'ib ah inaan idin soo saari doono. maanta waxay ka bilaabanaysaa qaabka loo sameeyo fururyaha saliidda la marsado iyo si aad uga ganacsan karto. intaba waa idin sharaxayaa iyo waxa aad u baahan tahay saliidda inaad isku dardarsato. هذا وين وباللابنيسة هدو الله إدمه. هذا إجرا لنخذ هذا هل كان وحنكو هيستا سليد أولف أويل هل كان كو هيستا إيو كوكونات أويل. so قاندان أياد أباهن تهاي تيبل سبون كا هل قاندو أو كوكونات أويل هل قاندو أو محوا هاي أولف أويل. kadib waxaan ku darsanaynaa oo aan halkan ku haystaa almond oil. iyadana waxaad u baahan tahay hal qaando. teeda kale waxaan halkan ku haystaa grapeseed oil. waa saliidda canabka laga sameeyey saliideeda. saliidahan waa saliida cajaa'ib ah maasha Allah ay ka dhigayaan. halkan waxaa ku haystaa vitamin E oil. ayadana waxaan ku darayaa hal qaando sidaad u jeedaan. halkan waxaa kaleento ku haystaa vegetable glycerin. so bahalkan wuxuu ka caawinayaa saliidaha aad ay qafiif u yihiin. iyadana waxay u yeelaysaa wax yar maxay ahato qafiifka aadka ah ayay ka caawinaysaa. waa vegetable qudaar ayaa laga sameeyey ayaan halkan ku daray. maxaa kaloo halkan ku haystaa saliid iyadana caraf iyo leh maxay ahato laga sameeyey vanilla ayaan ku darsaday. flavoring oil aa la dhahaa. haddii aad waxaad rabto aad ku darsan kartaa. so saliidaheennii halkaas ayay noo yaalaan. waxyar maxaad sameynaysaa saas baa iskugu qasaysaa si ay kulligood isku dhex galaan. kadib dhinaca u dhiganaysaa. hadda maxaa noo dhiman marka? halkan waxaa ku haystaa ubax 100% waxaa waaye boqolkiiba boqol in oo maxay aheeto natural ubax waaye dabiici ubax ah. so halkan ayaan ku shubtay. sababta aan halkan ugu shubtayna waxaa waaye saxan ama wax kale uma baahna inaan iska hadleeyo. meeshaan aad baan u dhaqay waa nadiifiyey kadibna boqolkiiba 99 biyaha alcoholka wataan ku tirtire. soo waxba inaa ka walwashid uma baahnid. teeda kale dhalooyinkan dhan waan soo nadiifiyey waan soo dhaqay kadibna disinfected-aan ku sameeyey ayagana oo sidoo kale biyihii boqolkiiba 99 alcohol lahaayaan ku nadiifiyey. soo ayadana waxba kama walwalaysid. soo hadda waxaad soo qabanaysaa markaan sameyno waxa dhan waad arki doontiin aad mid u qurux badan ayay noqon doontaa. ubaxii ayaad si waxyar ku ridanaysaa dhalooyinka. intaas camal ka badan uma baahnid. soo dhalooyinka dhan waxaad ku shubaysaa ubaxan aa haysato. hadhowdii waxay ku noqonayaan saliido aad u qurux badan indhihii la dhacayn haddana korkaadana ka faa'iidi doono. sababtoo ah waxyaalo badan oo fitamiin iyo iskugu jiro saliido kala duwan ayaa laga sameeyey. waa kana uma baahnid wax badan inaad ku shubto sababtoo ah dhalada dhan hadhow dhalada dhan waxay qaadaa wax yar oo saliid ah. haddaa wax badan ku sii ridid oo ubax ah wax yar saliid un bay qaadaysaa. soo waa kana ayagoo soo diyaariyey. intana waxaa noo yaalo saliidii. hadda waxaan sameynaynaa marka waxaan ku daraynaa
geedkan waxaa la dhahaa gold leaf, waa ubaxa. Bahalkan waxaa la dhahaa dahabka caleentiisa waaye. ayadana waxa saliidda aan ku dareynaa inta aanan dhalooyinka ku shubin. soo markaad soo qadanaysid inaad iska ilaaliso kas wax yar unbaa u baahan tahay, waana qaali aadayna u bidbidaa. soo inaad aad uga taxadartid, waa inuu kaaga batana looma baahno. adiga qiyaastaada un wax yar unbaa ku darsanaysaa. faruuryaha wax uma dhibayso, quruxna way siinaysaa. hadda waxaan u baahannahay dibladan yar, waxay naga caawinaysaa si fudud inaan ugu shubno dhalada. waa taasaa waan soo cabeeyey anigoo isticmaalayo dibladii yareed oo idin tusay. afkiisaa gelinaysiin, saasaa u xiraysaa. saas markaa u xirto kadib waa kaasa. maxaa ka qurux badan fitamiin, saliido kala duwan way kuu duceynayaan aan ku dhahay faruuryahaada hadduu ilaah yiraahdo. sidaan waa ku gadi kartiin qofkii raba inuu ka ganacsado. haddii aad rabtidne inaad ka dhigtid professional camal, wax kala idin tusaya. halkan waxaa ku haystaa bacihii yaryaraay oo lagu dhejinayay saliidda, ku qornaayeen rose and gold infused lip oil ku qoran, iyo qofka soo saaray ama meesha maxay ahayd magacii uu qofka u baxsaday. sababta aan u dhahay labada magacaan ugu bixiyey waxaa waaye ubixiina waan ku daray, caleentii dahabkana waan ku daray, sidaas darteed waa. soo hadda waxaa idin tusayaa marka waa kaasaa. sidaas ayaan waxaynii oo dhan usoo diyaarsanay. lacag lahalla meesha aan joogo, waddanka aniga joogo, saliidan waxaa la gadaa $7 halkii xabo. caawa waxaan rajeynayay inaan idin soo bandhigo tan lagu koriyo kobcinta baalaha, indhaha baalahooda, ama haddaa rabtid maxay ahayd suniyaha. laakiin waqtiga ii saamixi waayey. insha allah waxaan rajeynayaa mar kale inaan idin soo diyaariyo, ama videogeyga labaad inuu noqon doono kaas hadduu ilaahay idmo. hadda waa kaasaahe, bal waxaan rajeynayaa inaad isku tijaabisaan. haddaad business ka samaysidna lacag badan waa ka helaysaa insha allah. faa'iido wacan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.